taasi waxay tilmaamaysaa xaraga dagaalankii aan horay u sheegay. halgankii gabdhiya wiilaliya geesi lagu waayay halgankii la goobtee gigsadeen gacmaha taagin halgankii kungulamo iyo loo guntaday hooga in gumaysi kala qaybiya soo gurmaday oo naftoodii iyo maalkoodii ku soo gurmaday halkan geeran ugu soo tala galay dadka dhibaataysan ee dagaalka lagu hayo inuu ay maartisaad ka dhigtaan ugu soo tala galay waxaan leenahay waa mahadsantihiin baanu leenahay aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa dadka kale waxaan daydo xaalad adag baynu ku jiraa waxaanu kaga bixi karnaa maalkeenna iyo muruqeenna oo aynu midayno waxaan leenahay daydo xoolaha hala keeno dhaqaalaha hala keeno hala istifaaco dulmigan hala iska ilaaliyo waa xadgudub yaan la samayn dadka aynala dagaalamaya qoriga dadkeenna ku haya carruurteenna laynaya dagaalku yuusan dhaafin taasi waxay tilmaamaysaa xaraga dagaalankii aan horay u sheegay oo waxaan rabnaa ninka soo duulay ee laascaanood hareeraheeda jooga ee carruurteenna dilaya ee gabdhaheenna dhaawacaya ee guryaha duqaynaya ee biyaha maaragtay goynaya ee masaajidada duqaynaya dagaalkeedu inuusan dhaafin wiilkiisa ardayga ah ee meelaha jooga ama xaasku ka yimid waa inuu noqdaa walaalkeen xaraga dagaalanku sidaasuu noqonaya qoladan dagaalka ku jirtana waxaan leenahay wax kastaaba oo xun wanaag baa ka dambayn doona sida saxda ah waxa weeye inaydan ku dhimanin dad annagana nagu dilin waxaydan laga gaadhinin guul waxaanu leenahay xabadda joojiya guryaha iyagiyo magaalooyinkeena nooga taga meeshii aad ka timaadeen ku noqda gurigiinna iyo gaadiidkiinna iyo magaalooyinkiinnu haydin deeqeen saas baanu idinku baaqaynaa sida saxdaana waa saas dadka qaraabada la ah ee madaxda u ah ee culimmada u ahna waxaan leenahay naf walba naftaada oo kale baa laga soo qaadaaye war haddaad ku raacsan tihiinna waxaad ku raacsantihiin waa dulmiya ka jooga haddaydan ku raacsanayna walaalayaalow qabta baanu leenahay talageeyadoodu sidaa weeye dadka deegaankana waxaanu leenahay waxaad rabta noqo oday noqo arday noqo inan noqo ciidan noqo ballanteenna waxa weeye inaynu isku duubnaanno dulmigana iska dulqaadno xadgudub dheeriya oo maaragtay dad kale aynu dulminana aynu ka fogaanno aad iyo aad baa u mahadsantihiin qolada socoteen waxaan leenahay soo dhowaada laascaanood oo xor ah oo dadkii laha ka talinayaan waad saad iyo saanad u wadaan ku soo dhowaada baanu idin leenahay reer goobweynaa geela bixiyey waxay ugu talagaleen dagaalkan difaacu nafsi walmaalka ah sool ka socda bay ugu talagaleen waa bilow mar walbana diyaar baa la leeyahay goobtan aan taagannahay cabdirasaaq iyo raggii odayaasha ahaa xoolaha maaragtay u qaabilsanaa ay isugu yimaadeen anigoo ku hadlaya afkii raggii xoolahan waday xoolaha kanu waxay ka yimaadeen goob weynay ka yimaadeen waa wada awr 40 awr baa la diyaar gareeyay 28 baa halkan hadeerta taagan inta kalena 10 iyo dhowrka kalena subaxa isniinta haddii alla idmaba iyagana insha allah madashan la keenayaa ka qaybgalka ninba meel buu dee malaab ka yahay oo ka shaqaynayaa
geelani uguma soo horeeyo ugumana dambeeyo in alla intii maaragtay hawshan ay ina haysato dulmiga ah way soconaysaa 40 kale laakiin waa bilow si joogta ah baana xooluhu insha Allah u soconayaan waxaanu geela u soo hormarinay galad Cabdirasaaq markii uu lahaa waraan isdifaacno wuxuu yiri markii rag maaragtay la wada hadlayay annagu digaag iyo qamadi iyo isku difaac mayno ku hawlgeli mayno oo mucaarad isdifaac maaragtay ku qaadan mayno annagu hilibka geela iyo xoolaha nool baan isku difaacaynaa bilowgii xoolihii noolaa iyo geeli weeye sidaasaad ku talagelaysaan joogtuuna noqonaya insha Allah walaalaha kale dhibaatada nagu haya iyo dulmiga nagu haya qooleydu shimbiraha nooca ugu miskiinsan qooley baa la yiraahdaa qabasho biyaha kuma cabta baa leh nin islaam sheeganaya oo ehel sheeganaya oo daris sheeganaya oo cid walba oo bulshada qaybaheeda leh oo meel aan waxba ku oolin ummadii nafteedii iyo maalkeedii ku weeraraya ku baabiinaya waa wax aad loola yaabo dib isugu noqdaan leenahay dhulkeena ku ekaadaan leenahay inama kala qabato waxaanina waa un dhamaanayaa laakiin qofku inuu maaragtay waa la dhimanay xaq darro ku dhintaa xun gogoshiinu ha idin deeqdo dib isugu noqda haddii aad hadal qabtaan innaga oo gudboon ninkii hadli karaa dee marka wuu u fasaxan yahay intaana waan ku darsaday waadna mahadsantihiin wasalaamu calaykum.